shirgudoonka mudanayaasha shaqaalaha iyo saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib maanta waxaanu ka hadlaynaa waa qodobkeenan ajandaha ee arrimaha dibadda ilaa shalay waa laga soo hadlay xildhibaano badan baa ka hadlay sidaa uu sheegay xildhibaanka imka u dambeeyay iga horeeyay arrimaha dibaddu maanta maalin ay ka fiican yihiin ma jirto xaaladda aynu maanta marna Soomaaliland meel ay ka fiican tahay ma jirto waanu marakacayaa idinkuna waa ogtihiin waxaan soo jeedinayaa markaa oo aan xukuumadda ku dhiirigelinayaa in halka laga sii wado oo sidii shalay toolo soo jeediyay mudana golaha ka mid yihiin in guddi itiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland raadisa oo labada golo ka kooban la magacaabo ayaan u soo jeedinayaa madaxweynaha dadaalka uu wada iyo maartay soo dhaweynta iyo wadamada kale la soo dhaweynayna halkooda in laga sii wado oo la sii dhiirigeliyaan ku boorinaya madaxweynaha waana ku amaanaya bulshada Soomaaliland na waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada maxaan ku dhahdayay siyaasadda arrimaha dibaddana maanta masha ay maraysaa waa meel aad u fiican marka loo eego arrimihii waqtiyadii hore ee aynu hore u soo joognay waan ku taageerayaa xildhibaanka u dambeeyay hadallada iyo wufuudda kala nooca ee kala faraha badan ee soo qulqulaya Soomaaliland waana soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh